مقر صوغاتي بس قلت لا سعود مقر كل نفسي مقر دوبر يعني أنا بدي على هذه إن أقول أصحابي هذا عيال وير سي أسعتي مركان مريان إن dadkii ay maartay nafta ka qaadaan sida baangad u wadaan waliba mobilada ay ka dhacaan musiibadan waxay ka dhacday dharkeenley marka dhibaatada xun ayaa ka dhacday wiil dhalinyaro oo dharkeenley aan ka ahay ay halkaasi ku dileen habeen oo fiidkii ah marka masaajidka ayaa ka soo baxay telefoonkii oo watay way ka qaateen asagana naftiisa ay dhaafiyeen marka ciidamadii booliska ayaa beesha imaaday degdeg u imaaday markaasi waxay ka qabteen kooxo badan oo ciyaal weeraa inta kale way baxseen qaar kale way qabteen qaar kale ayaa hadda si idida la geeyay wareysi ayaa hadeer maartay laga qaaday wareysigooda sida uu dhacay iyo sida u faafay sida qaabka inay ku dileen iyo waxa u geeyay ninkaas mas'uulka inay dilaan leeys la ku xadgal karo aniga dagaalka waxa soo maray duulsi oo baxay maqalkan soo qaatay جوكسي maya asaa duulsi man duka darasi waa baxay soo joqreen waa baxay maqal soo qaatay bas qolada la socdo maqal ku nafsi maqal doobar yani أنا بدي على هذه إن أقول أنا قاعد أمي لكن صور لك يلا أركي مقال كيسك سو قاتي أنا كمان بدي داو بدي دا كل شيء بدي دا كل شيء لكاو بدي أقول أفتم ها يعود برده يعني مجلس عنقس بالأخبار مجلس من خير شيخ نور شغل لا نسكي سنة شيخ نور الله بالأخبار مع السؤال الغبان يقرأ عور بالغبان تقول ما الأول عند المقام أو مقر وتمقر كل سؤال بالأقل يقول فيها كعكاس wiilka dhibaatada geystay oo ciyaal weerada ku jiray ninka uu sareeyay ayuu ahaa hadda ninka hadda la wareysanayo waa wiilka food dheeraha ninka maartay wiilka dhalinyarada naftiisa dhaafiyay marka hadda waxaa laga wareysanayaa qaabka oo u dilay iyo ragga intay ahaayeen marka magacyadii wuxuu sheegayaa dadkii la socday asaga oo ciyaal weerada ka tirsanaa oo baxsaday kuwa kale waa la hayaa marka arinta ciyaal weerada aad iyo aad ay cirka u shisharanaysaa degmooyinka muqdisho ayaa hadeer cabsi soo wajah marka ciyaal weeradan waa mashruuc dadka gooni wataan sababtoo ah degmada gobolka banaadir duq magaalada arinkaani waxba uu ka qaway waxaa rabaa dadka ciyaal weeradan qofkii ciyaal weero asagoo dad dhibaateynaya shacab lagu qabto waxaa loo baahan in ilad dambe ay qorax saarin laakiin qofkii marka la qabto waa la soo deynayaa weli fooda ayuu dhinac ka bilaabaya hadda heer waxay maraysaa hadeer in hadday nafta dhaafiyaan wiil dhalinyara oo miskiina oo sida la sheegaya hadeer waxaa maqlay wiilka hadduu guursada hadda wiil loo dhalay marka aad ugu xumahay wiil maasha Allah mustaqbal lahay ee nafta dhaafiyeen marka dad ciyaal weeradaasi waa waxay waalid leeyihiin walaal leeyihiin waalidkood ciyaal weero ay ku ogyihiin waalidka in maartay meel saaran dadkaas ilaahay dadkaas ay ka cishtaan ayaa loo baahan midda kale anay kuwa degmada iyo booliska waxaa kula talinayaa cunugii ciyaal weero oo la qabto in dib dambe oo qorax indhaha u saaro xabsiga la geliyo jilco ilmaas la geliyo si dib dambe ee wax dambe oo dhibaato u subin marka ciyaal weer way baatay dhowr maal waxaa arkay dad dhaqaleen dad dileen ama hadda waxay isugu daraan qofka inay dhacaan naftare ee maartay qofka dhaafiyaan marka aad ugu xamaay wiil dhalinyaro ay sidaas maanta u galaan dharkeenley arrinkan ka dhacday waa arrin aad u xun oo dadka Soomaaliyeed ee la yaabiyay arrinkan ay soo biyaan ciyaal weero marka ciyaal weerada hadda degmooyinka muqdisho aad ay ugu soo batay waliba gaar ahaan dharkeenley iyo kaaraan way ku badan yihiin ciyaal weerada marka duqa magaalada degmooyinka muqdisho waxaa meel kasta ay joogaan waxaa u sheegaya in dadka ciyaal weeradaasi gacan adag ay baahan in lagu qabto oo maartay waa dad dhalinyaro oo xaafad ka soo kaca oo waalid leh marka in qofka iska dilaan iska baxaan meesha wadankana dawlad ay